gudoomiyaha shirkadda duulimaadyada ee Qatar Airways Sayid Albakar Albakir ayaa maanta waxa uu shaaca ka qaaday in shirkadoodu 1 bisha July ee sanadka cusub ee soo socda 2019 bilaabayso duulimaadyo toos ah oo ay kaga howlgalayso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali ayaa sheegay in gudoomiyaha shirkadda duulimaadyada ee Qatar Airways uu qorshahan ku xaqiijiyay kulan isaga iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre maanta ku dhexmaray magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu la kulmay saacad ka hor wax ka yar saacad ka hor wuxuu la kulmay gudoomiyaha shirkadda Qatar Airways Sayid Akbar Albakir waxaana ka wada hadleen xilliga ay u qorsheeyeen in duulimaadka Qatar Airways ay ku bilowdo Doha Muqdisho duulimaad ah oo toos ah. wuxuu noo xaqiijiyay 1 July inay bilaabayso Qatar Airways duulimaad toos ah oo Qatar Airways ee Muqdisho iyo Doha Muqdisho ah. sidaad ogtihiin Qatar Airways waxay ku jirtaa sharikadaha caalamka ugu connectionka badan ama meelaha ay tagaan stationada ay tagaan sharikadaha ugu ballaaran bay ku jirtaa. marka wax weyn ayay u tari doontaa diasporaha Soomaaliya ama qurba joogta Soomaaliyeed inay dalka yimaadaan kuna noqdaan wadamadii ay ku noolaayeen. إن شاء الله تعالى وحوين بيكبدلي دونتا حرير كإسجارسينتا دينا هودا الصومالية iyo caalamka intiisa kale. qorshahan shirkadda duulimaadyada ee Qatar Airways ay Muqdisho ugu bilaabayso duulimaadyada tooska ah ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa hanaanka maalgelinta ballaaran ee shirkadaha ganacsatada iyo dawladda Qatar ay ku maalgelinayaan dalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka, Telefishinka Somali Cable.